ciidamada booliska sida gaarka u tababarnay Haramcad ayaa habeennimadii xalay waxay howlgalo ka sameeyeen gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Howlgaladan ayaa salka ku haya xaqiijinta amniga caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Ciidamadan ayaana waxay howlgaladan ka sameeyeen afarta xaafadood ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Howlgaladan ayaa xalay lagu soo qabtay ilaa 2 ruux oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Markay soo dhamaadeen ayaa waxaana qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa u mahad celiyay howlgalada ay wadaan ciidamada booliska sida gaarka u tababarnay Haramcad. howlgalka markuu soo dhamaaday ayaa waxaa ka warbixiyay taliyaha ciidamada Haramcad ee qaybta ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle taliya Calasow. hadaladiisina waxaa ka mid ah sida tan: howlgallada hadda bilaabanayo howlgalladan hore ay u socdeen ciidanka oo hore u joogay ayaa hore u waday, annagana hadda ayaa imaanay. howlgalladan waa howlgal loo xaqiijinayo amniga caasimadda. har iyo habeen waa u taagannahay in aan howlgalladan ka wadno caasimadda. waxaan ciidanka ku boorinayaa inay si wanaagsan ula dhaqmaan dadweynaha si ay u soo jiitaan oo dadweynaha ay ugu soo dhawaadaan. waxaan leeyahay ciidanka si wanaagsan ula dhaqma dadweynaha, si wanaagsanna loo xaqiijiyo ammaanka caasimadda. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay nagu guulay doono. lacaawan dadku soo qabanay, dadkaasna way joogaan, waa arki doontaan insha allah. waana rag aan soo qabanay oo aan ka shakinay, marka waxaan ku wareeji doonaa saldhigga caasimadda ku wareeji doonaa insha allah. Liban Abdulle Maxamed, Liban Lakimaan Soomaali Cable TV, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, magaalada Jowhar.